وعلى ونكسن دمان halkani waa Hargeysa online maanta waxaan wax yar eegaynaa bal siyaasadda Somaliland meesha ay marayso aan ka wareysan doonaa aqoonyahan reer Somaliland ah oo ku sugan wadankan Mareykanka magaalada St. Cloud ee Minnesota waa Nuux Cabdi Nuux ku soo dhaw Hargeysa online bal waxaad nooga warantaa siyaasadda guud ee Somaliland waxa maanta ka jira ama ku soo cusboonaaday ama asanta kabaal horta intaanaan ba waxba kalaba oran ba sheekayar baan doonayaa in dadka la wadaago waxa la yidhi nin indhala oo dhagala ayaa bari leeyahay war maxaad ku garatay inaad gardarantay ummadii oo dhan baa soo wada eegtay wiil maanta madaxweynaheena Muuse Biixi ummadii oo dhan baa soo wada eegtay wax alla wuxuu garanayaa oo u macnayn karaan ummadii ma jirto iyo wax uu tala qaadanaya marka siyaasadda kala hadlayno eegno meel aan cabarin ma jirto deegaan aan cabarin ma jirto isagu wuxuu ahaa xarinka isku xidhaya Somaliland isku xidha ummadda isku xidhaa buu madaxweyne ayuu ahaa inay noqoto laakiin uu noqon waxaa noqdeen afar reerahoodu ma soo kaxaysa waa maafiyo waa family maafiyo un bay noqdeen qofkii inanka yara hadla la xidhayo inanta hadasha la xidhayo duqa wax inuu dowladda wax ka sheegay xaalkii waxa weeyaan waa bariga dhexdeeda oo la jiray waan gartay maxaa markaa cusub maxaa loo xidhay wasdeeda markaa maxaa keenay xidhista waa just I don't know mafia waxaan ugu macnaayay Soomaaliya mafia waa just haysta oo diidaya in qofkii hadla ama dowladda wax ka sheega ama corruption ka jira wax ka sheega la xirayo Congress shaqeysa ma jirto waa just madaxtooyadu baa ay shaqeysa waxay rabaan way sameeyaan mafiyada kuka mafiyada waxay xirayaan way xiraan sharci ciidu ma raacaan xakamada ma shaqeynayaan tasawir family baa meesha haysto maxaa markaa lagu oran karaa sida maxaad ku cadeynaysaa in meesha family kaliya haystaan dewaan wadankeeni bal eego dowladda dhegeyso dadkeenu waa waxay ka tirsan yihiin waa beelay ka tirsan yihiin beel kasta aan cabanin ma jirto ummadda ayaa خاطئة. البيع عن كان عددين. هذه محبة الإسبوعية بيها. غير فوق ما عنده ويدوا والحرق. أفرت كورونا بعيدا بكائيو إلى كائن كذي. إسلام أمور على السوق هذه كروايو ميجا كأمورس. من شباب ميجا كل شباب على السوق هذه. جلش الدنيا ولا حرق يجا جلش الدنيا حبس كده اي ما خص يسوي انك تاني من حوينها قاعد تجري سنه يا استوحى اقوم تجري يا محرس واحده ما تشرع ايش الدوله بترتدي waan gartay Nuux laakiin Somaliland saan ka warhayna muddo badan bay soo jirtay inkastoo aqoonsi caalami ah aysan helin hadaad eegto Soomaalida kale way wadan iska baabacsan waxa loo qaato Somaliland baad loo qaato nidaam iyo kala dambeyn leh marka Somaliland ay si u jirtay ilaa laga soo bilaabo 1994 mucaaradun baa jiray qoysas mucaaradun baa jiray ama reer mucaarada ilaa haddana way jiraan 22 sano marka mucaaradun baan ku shaqeynaa marka maanay ahayn maanta kale inaan Muuse aan garab istaagno aan dowladda la shaqeyno هي هذا صدور مدحوينها مصدر المكونات وضعها انت
baa aqoon inoogu dhow aqoonsan duwan aqoonsanaysa ma jirto hadda soo talabaad mucaarid weligii buu jiraya waana jiri doonaa horena ugu jiro laakiin jabhada may jiro maamulka ciidan baxaya oo dad ma jirinada waxana may jiro waxaan waa wax cusub wax cusub oo soo kordhamaya leeyahay jabhada jira jabhada hore jir ma ciidamo koostabay ma jiro waa gartay kolay taa waxay ka dhalatay hub maantaya maxay ahayd tolay doorashada la isku qabsado soo ma كمان doorashadu colaada ciile af weyn ayaa waxaan oo dhan keentay aanay dowladdu dhexdhexaad ka ahayn ummadooda waa ogtay inaanay dowladdeenu aanay dhexdhexaad waxa ka socda okay marka ciile weyn yaa isku dilay marka ma beelaha ma dowladda waa وتركي لبضوا لبضا دين حيث لين يا ابو تركي ينظر قارن وقدش وحو كحناقي ciidamada ayuu ka xanaaqay dowlad aan dhexdhexaad ka ahay sidee markaa ayaa is leedahay sheekada hadda Soomaaliya ay ku shaqeynayso soo xasle أنا عارف إنه كنت الدولة حافظ إيش اللي هو كنت الدولة وحها وإنه الشرع قفك الله حريه منك كونغرس قال صار حريه قفك الشعب قال حريه وإنه وحول بالشرع اللي رع ما هو وحول بينه كل لو صار قف دبره يمين كل بيسيرته لو صار عماه waan gartay سياد برا ayaa meesha haysta سياد برا ma haysto martaba inaga dooranay madaxweynaha waa in madaxweynaha dowladda ka dhigaysto oo ummaddu waxay ka cabanayso oo dib u eego ma aha inuu afar reerkooda uu intuu meesha ku soo xareeyo oo yiraahdo inuu doorashadii baan helay waa okay waa doorashadii waa dhashay laakiin waa madaxweynuhu baa wax ka bedeli karaan وأنا كونغرس وشقيسو أي مشقيسو وأنا حكمون إنه مدح بنانا ما هم الحلول الحافظوا ذي كسر نقطة أو أقوم هذا دول كودي وايد إنما يرى أبتيال هاي أنت يرو قيمتين إنه الحافظة ده تذكر يكون قبصان عروتي كل شيء عارفة تجري ما أسمع ما وحوية من عدالة بعد هذا درجة تبقى محا تبقى ككنال يعني كروي ككنا marka aad waxa leedahay Soomaaliya waxa ka jira cadaalad darro leedamiya ma cadaalad ma jirta cadaalad ma waxa shaqaysa maxkamad ba shaqaysa maya waxa waxay doonaan bay iska sameeyaan booliisku iska sameeyaan military waxay doonaan bay ku laayaan bariga waxana wax shaqaynaya ma meel walba oo laga cabanaya marka isaga u taala shaqada ma aha waxaan anigu iraahdo inuu wax weyn ka bedelayso madaxweynaha ayaa wax ka bedeli kara waan gartay national security advisors ayaa wax ka bedeli kara waan gartay laakiin maxaa ahayd tolay kolay wadan kasta mucaarad waa leeyahay iyo muxaafid ba hadda wadankan Mareykanka waa la socotay doorashadii ka dhacday in la isku qabsaday oo nin aan la jeclayn uu soo baxay Donald Trump تسويع doorashada inaad ruuxay doorashada waa waxa dhici kara inuu isxalaaba dhici karta laakiin maanta isaga madaxweynaha waa madaxweynaha waana loo golay laakiin madaxweynaha guud ahaan khalday waa in taloo sheego waa Trump ummadoo dhan baa cayda Facebook dadka umadiiba dhalinyaradiiba Facebookooda la oranaya maxaad ku qortay ahsama dawladba waxaasuba siyad baraaba dhaamada tar waan gartay kaas wuxuu ahaa Nuux Cabdi oo aqoonyahan reer Soomaaliland wadanka Mareykanka ku sugan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland aad baan aqoonyahan ku salaamaya
aadna waad u mahadsantahay barnaamijkeenana intaas ayuu ahaa aan ku eegaynay siyaasadda guud wixii iska bedelay Somaliland. Okay, Kamal, wa alaykum salaam. Alaykum salaam.